laan u dul qaadanaynin haddii shirka taleex ka socda laga duwo majarihiisa amaba ujeedooyinkiisa shir jiray in shirka taleex ay ka hadlaysay taasi oo xukuumadda Soomaaliland buu yiri aanay marnaba is hortaageen beel kasta ama cid kasta oo arrimahooda ka hadlaysa hasaatee wasiirku waxa uu intaas ku daray in shirka ay ku sii qulqulayaan rag siyaasiyiin oo raba buu yiri in ay shirka beesha ay majara habaabiyaan taasi oo aanay Soomaaliland marnaba aqbalaynin waxana uu yiri taleex waxa la yiri waxa ku arrinsanaysa beel kamida beelaha reer Soomaaliland beel kamida beelaha reer Soomaaliland beeshaasi danaheedii haddii ay ka arrinsanayso la hor joogsan maayo sida beelaha kale ee reer Soomaaliland ba ay danahooda gaarka uga arrinsadaan aynu dhaqanka uga arrinsanno ee aynu wixii aynu tabanayno uga arrinsanno ee dareenkeena aynu ku muujino iyagana dhiban laakiin haddii ay rag qaran duwin u yimaadaan ama calan Soomaaliyeed ay soo wadaan waa tan sheegayno inaanu ka hortagayno ee aanu difaacayno ee aanu ilaalinayno wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Nuur Caraale Duur oo ka jawaabayay talaabada ay xukuumadda Soomaaliland ay arintan ka qaadanayso waxa uu yiri talaabo kasta oo qaadi karo ayay Soomaaliland qaadi kartaa taagdaro nama dhigayso laakiin turaala jira taagdaro Soomaaliland dhigi mayso taleex maaha deegaankii Soomaaliland meel ka baxsan waa meel ay gaari karaan maamulka Soomaaliland horena u gaareen imkana ay gaareen marka turaala nagu jiro beel tiri waa shiraynaa inaanu sii deyno laakiin haddii ay muuqato in tallaabooyin khatar ku Soomaaliland ay kaga soo baxayaan shirka waa taanu ka digaynayno leenay ka daaya hadday taasi timaadana waxaanu qaadaynaa tallaabo kasta oo qaran xaq u leeyahay qaado oo uu xusay in sidii horeba uu madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo oo ugu ballan qaaday ay Soomaaliland markasta soo dhaweynayso cid kasta oo qabta tabashooyin siyaasadeed iyo kuwa u gaara intaba iyo waliba sidoo kale gobashii madaxweynaha Soomaaliland uu hore u fidiyay ee nabad